halkani waa garoonka Laqayo Stadium ee ku yaala xaafadda Xawtaako ee magaalada Beledweyne waxaa si rasmi ah u daahfuray tartanka oo 20 kooxood isla markaana ka tirsan afarta xaafadood ee magaalada Beledweyne daahfurka tartanka ayaa waxaa lagu daahfuray kooxaha VIB iyo kooxda Bundaweyn City isla markaana kala dhisan xaafadda Kooshin iyo xaafadda Bundaweyn si kastaba ha ahaatee tartankan waxaa ka soo qayb galay dhalinyaro aad u fara badan kuwaas oo soo daawasho tagay si ay tartankan u ogaadaan mustawihiisa daafurkiisa ugu horreyn waxaa ka hadlay Cabdullaahi Maxamed Xasan walaalka oo ah ninkii soo qaban qaabiyay tartankan isla markaana ah guddiga ugu horeeya tartankan qabashadiisa bismillaahir rahmaanir rahiim magacaygu waa Cabdullaahi Maxamed Xasan Fiido oo ku magac dheer walaalkoon bartiisa media aan ku soo galo Jiraan Sports wallahi horto marka hore ilaahay horto mahad iska laan ujeedka aan tartankan aan u daahfurno waxay tahay baahi oo ka jirto sportska sportska maamulkooda ka jirteen dhalinyaradii waqtiga ugu fursada badnaa ay haystaan fasax ku jiraan gobolkiina inuu yacni sports laan yahay way la qurux badnaa weyse waayahay imsaan kooxda ka qayb galayso sidee ku soo baxeen iyo goobaha ka soo baxeen horto tartanka waxaa kusoo galnay afarta kooxood waxaana kasoo qayb gashay 24 tiim si aad u aragteen qoratuurka marka intaas ay la qorto tartanka waxaa waaye naga out waayahay maxaa ka rajaynaysaa tartankan inuu soo afmeero insha Allah waxaan ka rajaynayaa tiimka saarno dhammaantooda inay yacni shuruucda iyo sharciga dhammaantoodna la ilaalin doonaan iyo waqtigaba waxa kale oo leeyahay dhalinyaradu waxay tahay garoonka waxaa waaye tartanka waa in la daafuray imaada nin walba oo saaxiibkiisa mise walaalkiisa dheelaya ha u socoto qaar ka mid ah mas'uuliyiintii dhalinyarada ka soo qayb gashay daafurka ayaa bogaadiyay ninkan dhalinyarada ah ee isku dayay inuu qabto tartanka dhalinyarada magaalada Beledweyne maadaama lagu gudo jiro bilihii fasaxa dhalinyaradana firaaqooda ay aad u badan tahay alxamdulillah markood ilaa maad iskale anagoo caafimaad qabno halkaas ka keenay magacaygu waa Saadiq Cabdikariim Faarax oo ku magac dheer Saadiq Booteeye galabta waxaa joognaa garoonka Stadium Laqayo oo wax badan tartamo lagu ciyaarin waxaan dheelayo VIB iyo naadiga Bundaweyn waxaa isxilqaamay niman dhalinyaro ah oo xaafadda degan oo halkaas galabta koob oo ka daahfura insha Allah maxaa ka rajaynaysaa tartankan wallahi ana naadigeena waa ku jirnaa naadiga waa bari waa ku jirnaa tartamayaal aan nahay waxaan dheelinaa biri maan saadan baa leenahay insha Allah waxaan rajaynaynaa ilaa ay kaba dambeys kala koobkiina ku guuleysan rajadeena saas insha Allah dhammaan kooxaha ka qayb galayo waxaa kula talinaysaa oo halkaan fariin u jeedaysaa wallahi waxa fariin u diraa dhalinyarada in anaga aan isxilqaano in mataqaana meesha wada shaqeyn ka dhacdo in koobka si qurux badan oo ku dhamaado nin walbana inuu maslaxada garoonka iyo koobka uu ka shaqeeyo bismillaahir rahmaanir rahiim magacaygu waa Cabdikariim Daahir Caraale waxaa farxad weyn noo ah galabta inuu noo daahfurmo tartankan oo inoo qabtay walaalka waxaa waaye tartan waxaan rajaynaynaa insha Allah inuu noqdo tartan aad u qurux badan oo micnaha tartamadii hore magaalada lagu qaban jiray wax badan kaga duwan insha Allah waxaa waaye stadiumkii in tartan naloo ku qabto aad u soo dhaweynaa haddaan nahay tiimamka ka dhisan magaalada Beledweyne ani Cabdikariim ahaan waxaan ka socdaa team laabka tartankaana qeybaa ka nahay insha Allah waxaan rajaynaynaa inaa meelo fiican ka gaarno hadduu Ilaahay yiraahdo wallahi kooxaha tartanka ka qayb galaayo waxaan kula talinayaa insha Allah tartanka looma yimaado kaliya in la guuleysto waxaa waaye tartanka in micnaha uu si wanaag ah oo bilaa rabshada ku dhamaado muhiim ah koox walba waxaa kula talin lahaa insha Allah inaysan fiirinin micnaha guuldarada soo gaarayso laakiin quruxda tartanka ay ka shaqeeyaan labada tiim oo dheelayso mar walba tiim guuleysanayo tiim walba waxaa ku boorinaa insha Allah in micnaha ay tartanka ka ilaaliyaan buuqa albiitar micnaha la qabsanayo tiim walba waxaa rajeynaa inay micnaha ciyaar wanaag ka shaqeyn doonaan hadduu Ilaahay yiraahdo insha Allah magacaygu waa Maxamed Abdullaahi Waale oo loo yaqaan garan og Amiin Joobane aad iyo aad maanta ugu faraxsanahay inaan ka soo qayb galo tartanka walaalka oo ka furmaayo Stadium Laqayo aad waxaan leeyahay sportsku waa isdhexgalka bulshada waxaan jeclahay in magaalada sportskeeda aad iyo aad horumar badan la gaarsiiyo oo dhalinyarada ay aad ugu dadaalaan sportska magacaygu yahay Shadaab Xuseen oo ka soo qayb galay walaalka cup kana socdo Alba team maanta waxaa halkaan ka furmay koob xiiso badan oo loogu magac daray walaalka cup oo nin dhalinyaro ah oo magaalada macruuf ka ah dhankan
dadka baahiye sportiska ka mid ah aad ugu mahad celinaa dhammaan kooxaha kasoo qayb galana waxaa ugu baaqayaa in nabad iyo isdhexgal ah ka wada shaqeyno badiyaan waa bahdeena dhammaanteen waxa ku loolama hadda meeshan waa 20 tiim 20ka tiimna hal tiim oo kamid ah guuleysan doono qofka ilaah u qadaraan qaadan doono dhammaanteen waxaan rajeynayaa si nabad ah wanaag ah inaan ninka walaalkeena ku garab istaagno cidii laga badiyaan qaadato cidii badisaan guusha ku faraxdo intaa ka gadaan ciyaar xiiso badan ayaa ku dhex martay garoonka TIB iyo kooxda Bundaweyn City ciyaarta waqtiga loogu talagalay waxay ku soo ilaatay barbara hal iyo hal waxaana rigoorayaal 4 iyo 5 ku adkaaday kooxda TIB City qaar ka mid ah ciyaartoyda TIB ayaa sheegay inay ku faraxsan yihiin guusha ay gaareen iyagoo fariin u diray kooxaha kale ee ka qayb galaya tartankaani أنا واحد مقعي حسين محمد علمي أو كنت سامري في بي قرأت مثلا على الاستاديو لقيم مقالة بلي نعقف فترة آد ولا سنة قرأت إن شاء الله تعالى أقول وين قرني قول شات كنتا وحي في بي مركز ولوي قانا إن ترد كمال أو كفي عكرتو أما أي قاتو مسفينا لي كارتو إن شاء الله تعالى عدوى جروب حيو بحني وحرجينا إلى فينال كنا ترتم كوحا كلو عليه متقان نصيب وعن أو رجينا ديكنا قالت بوندوين وانا من آدي آد وحفارتنو عيار قروح بنا سوبر نقني إلهي معنا قوش أنكو نيشي وحاليا معنا نقستير هايكو سنة كذا اللي رجعنا إن شاء الله تعالى المقعي waa maxamed faarax oo ka socdo team VIP galabta meeshan waxa ka gaarnay guul oo ugu gaarnay dhigayna Bundaweyn waana ku talagalayna in guushan aan gaarno marka xaafadda waxa uu soo baxnaba in aan guuleysano waxaan leeyahay VIP famos